السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ملك السجوكتان كسو دوادا ورك قلبنمي تلفزيون JMN وحادني ورحمة دون تاني قوة إسري إبراهيم نادن إسرهابي قد بدر كودر كورونا وحا كمدا قبل كفافنا يا سي رسميga oo guuleystay tartamada kubadda cagta ee gobolada maamul magaalooyinka degmooyinka jaamacadaha deegaanka Soomaalida gudoomiyaha gobolka Faafan mudane Khadar Axmed Nuur ayaa u hambalyeeyay gobolka Faafan oo ku guuleystay tartamada kubadda cagta ee deegaanka Soomaalida daawadaalintaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door karoona haatan ku soo dhawaada qodobada iyo qodobo kale faahfaahsan gobolka Faafan ayaa si rasmi ah ugu guuleystay tartamada kubadda cagta ee gobolada maamul magaalooyinka degmooyinka jaamacadaha deegaanka Soomaalida faafinta warkaasina aynu u gudubno gudoomiyaha gobolka Faafan mudane Khadar Axmed Nuur ayaa u hambalyeeyay gobolka Faafan oo ku guuleystay tartanka kubadda cagta deegaanka Soomaalida warkaasina aynu wada daawano madashan farxadeed ee koobka ka dhaxeeyay gobolada magaalooyinka iyo jaamacadaha deegaanka gobolka Faafan oo ku hantay dareenkaygu maanta aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in kooxda xulka kubadda cagta ee gobolka Faafan ay ku guuleysatay koobkan aad farxad weyn baynu ahayd runtii sababtoo ah koobkani uu ka duwanaa koobashii hore gobolada khaas ah loo dhigi jiray ama iyo maamul magaalooyinka gaar baa loogu dhigi jiray iyo jaamacadaha laakiin hadda maadaama ay intaasiba isku lifaaqnaayeen wuxuu ahaa tartan aad u adag buu ahaa marka tartanka haddana sidoo kale wuxuu ka sii duwanaa sanadkan waxay ahayd dhalinyarta u dhalatay degmooyinka iyo gobolka ayaa si khaas ah ayaa xafiiska isboortiga dawladda deegaanka Soomaalidu oo u khaas yeelay inay ciyaaraan marka maadaama ay dhalinyartaas ciyaarayeen qadiyad ku ciyaarayeen in aan guusha gaadhno aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay oo koobkiina uuna caasimada dhaafin aad baan ugu faraxsanahay waana hambalyeeynaa dhammaan guud ahaan taageerayaasha kooxda xulka kubadda cagta ee degmooyinka maamulka gobolka iyo dhammaan guud ahaanba taageerayaasha waan u hambalyeeynaa waan ugu mahadcelinayaa taageeradii joogtada ahayd ay la garab joogeen kooxdu si ay guusha u gaadho macallimiinta kooxda oo runtii dadaal aad iyo aad muujiyay agaasimayaashii kooxda oo guddigii agaasimaysay ee maamuleysay ee heer gobol iyo kooxda oo muujisay ka go'naansho iyo inay koobka dhiigga u shubaan qaadaan guusha maanta hantiyaan guusha aan ku wada faraxsanahay ay keenaan aad baan ugu hambalyeeynaa idinkuna waad mahadsantihiin guud ahaan waa hambalyo ayaan leeyahay insha Allah gobolku wuxuu ku noqday hormuud buu ku noqday waa koobkii saddexaad aan qaadno oo guud ahaan baan gobolada iyo magaalooyinka aan hormuud gobolada hormuud ugu nahay skorka aan haysano marka waan u hambalyeeynaa aad iyo aad baan la soo dejiyay ah inay dadka dhalinyarta u dhalatay degmooyinka gobolada iyo magaalooyinka ay ciyaaraan waxay keenaysaa si khaas inay dhalinyarta deegaanka u dhalatay ay isdhex galaan sidoo kalena garoonka waxa ay ku soo bandhigaan akhlaaq wanaag iyo ciyaar wanaag ay ku soo bandhigaan doorkana
taasi way muuqatay dhammaan kooxihii ciyaarayay gobollada iyo maamulgoboleedka iyo jaamacaduhu waxay soo bandhigeen ciyaar wanaag iyo akhlaaq wanaag bay soo bandhigeen sidoo kalena taageerayaasha laftoodu waxay soo bandhigeen anshax wanaag bay soo bandhigeen wareegan 12aad oo ka duwanaa wareegyadii hore ka duwanaa ayay soo bandhigeen marka taa waan dhiirigelinayaa dhammaan waan u hambalyeynaya kooxihii gobollada ka socday iyo maamulgoboleedka iyo jaamacadaha ciyaar wanaagii iyo anshax wanaagii ay soo bandhigeen ayaan ugu hambalyeynaya insha Allah guulana waan u rajeynayaa doorasho dambe waxaan si gaar ah ugu hambalyeynaya kooxdii maamulka gobolka Shabeelle oo runtii dadaashay oo aad iyo aad u dadaashay oo kaalinta labaad timid iyagana waan u hambalyeynaya insha Allah waxaan u rajeynayaa guul baan u rajeynayaa doorasho dambe inay qaadi doonaan baan u rajeynayaa maamulka degmada Mubaarak ayaa soo kormeeray wadada isku xidha degmada Mubaarak iyo tuulada Galgalu oo dhismaheedu u socdo markaasina aynu wada daawano maamulka degmada Mubaarak ayaa soo kormeeray wadada isku xidha degmada iyo qablaha Galgalu oo dhismaheedu socdo maamulka degmada Mubaarak oo hogaaminaya gudoomiyaha degmada Mudane Ibrahim Cabdullaahi Isaaq ayaa soo kormeeray wadada qablaha Galgalu ee degmada Mubaarak wadadan oo dhererkeedu dhan yahay 33 kilomitir laguna fulinayo miisaaniyad degmada oo ay ku baxayso adduun lacageed oo gaari 53 milyan oo bir wadadan oo wax badan ka bedeli doonta baahida wadalaanida shacabka qablaha Galgalu waxaana dhangiisa nooga warbixiyay gudoomiyaha degmada Mudane Ibrahim Cabdullaahi maanta waxaan soo kormeeray wadadii isku xidha degmada Mubaarak iyo qablaha santarka Galgalu oo u dhiganta 33 kilomitir ay ku baxday miisaaniyadan 53 milyan ay ku baxday wadadani marka waa wadadii loogu talagalay in maarta shacabka ay ka faa'iideystaan wadadana isku xidha ilaa iyo afar qabale waaweyn ee santarka Galgalu iyo santarka Hawan sida la wada socdo wadadan waxaan bilownay muddo hadda laga taagan yahay ilaa iyo 3 bilood ayay maraysaa ilaa iminka wadadani 14 kilomitir ayay hadda shaqada ka socota 14 kilomitir ayay hadda shaqada ay ku socoto waxa hadda la saaray xaqaankii hadeertan waa la dhameystiray ilaa iminka chaygi baa waa kan wala soo saaray meelo qaarkii chay wala soo saaray ilaa iminka marka xaqitaankii waa wadadan dheer aad u jeedaan 14 kilomitir muddo gaaban gudaheedii in lagu soo gabagabeeyo ayaa ninka projectiga qaatay aan siinay ayaan ka wada hashinay maantana kormeer ahaan degmada Mubaarak mas'uuliyiinteeda hogaaminta dhammaan anagoo wada jir ayaa waxaan soo kormeeray wadadii dhankiisana waxaa nooga warbixiyay madaxa xafiiska maaliyadda degmada Mubaarak Mudane Cali Sheekh wadadan waxa weeyaan waa one project weeyaan oo miisaanadii la taxliilin jiray in hadda isku meel ay timaado oo hal mashruuc lagu qabto mashruucan anaga hadda aan ku qabanay waa wadadan oo jay ah hadda socodkeedii waa tan aad arkaysaan oo meel fiican bay maraysaa waxaan qabanay ilaa muddo 2 bilood ba hadda ilaa ay socoto oo hadda bilowgeed meel fiican buu marayaa jaygan waa kan hadda oo muuqdo haasiyaatee miisaanadan meel kale ka timaado ma waa tii degmadoon mashruucyadii hore la firdhin jiray ba hadda meel isku keenay oo lagu qabtay mashruucan ballaaran ee hadda waxtarka leh saasi hatee muxuu soo kordhiyay weeyaan gaadiidka yaryar hadda la arkayo oo hadda soo maray oo kala waxaad arki kartaan hore ma mari jirin wadadan in badan ilaa 5 sano lama isticmaalin goobtan hadda aan taaganahay daawadayaal waxaa si toos ula socoteen warka galabnimo ee telefishinka JMN waxaa idin la socodsiinaysay anigoo ah Isla Ibrahim Aadan Israhabi intaan warka ka xiga ku kulmi doono waxaan leenahay salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh